بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داوديال halkan waa danan TV qodobada wararka aan idin hayno waxa kamida diyaaradaha ciidan siday oo maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ciidankaasi oo durba la wareegay xarumaha maamulka Galmudug ee magaaladaasi sababta ugu weyn ee ciidamada halka loo geeyay waan idin soo gudbin doonaa taliyaha guud ee militariga Soomaaliland oo sheegay in ciqaab la marsiin doono haddii gacantooda uu soo galo Cornel Caare maxaa buriyay heshiiskii hore ee Soomaaliland iyo Cornelkaasi warar ku saabsan iyo hadalka ka soo baxay taliyaha militariga Soomaaliland waan idin haynaa iyo qaska siyaasadeed ee Jubbaland oo si xoogaystay qodobadaas ayaa warka ku daawan doontaan haddii Rabbi laga helo channelka subscribe baadina hado si aad u heshaan muuqaaladeena xiga haatanna ku soo dhawaada daawadayaal warkii oo dhameystiran وجران سدح ديردود أو أي صارنايين أسكر جاري سلاب بقول سداد أسكري أو بوليسي ملتري سوجرة أيها جاري مجال دوسمريب حرنتها قبل كجلجدود أسكر تاسيو أدوه بيسنا أيها دولة الفدرال كالصوماليا وحي وقلت لك شيء إن كقيب قاتان سوجد أمني مجال دوسمريب جارهان حلقة وصعود شركة ديبوهيشين تبالها جلمدوك يصيدوا كلا أنت لو جود جرو وقت قاعد اسمها دولة قبلات كجلمدوك ciidamadan ayaa durba waxay isku balaariyeen garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb halkaasi oo ay degeen sidoo kale waxay qaarkood tageen xarunta shirkadda dib u heshiisiinta Galmudug lagu qaban doono iyo xarumaha qaar ee maamulka Galmudug magaalada Dhuusamareeb hore waxa ugu sugnaa tiro kale oo 100 askari ah kuwaasi oo booliis ah dawladda Soomaaliyeed ay hore u geysay magaaladaasi wadarta guud ayaa imanka waxay noqonaysaa in magaalada Dhuusamareeb haatan ay ku sugan yihiin 308 askari oo isugu jira military iyo booliis oo laga qaaday magaalada Muqdisho balse lama oga askartaasi in ay dib ugu soo laabo doonaan magaalada Muqdisho ama in weligood ay ku sugnaan doonaan magaaladaasi Dhuusamareeb maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in halka uu ka furmo shirkadda dib u heshiisiinta beelaha Galmudug iyadoona shirkaasi uu xigi doono dhismaha maamulka cusub ee Galmudug siyaasiyiinta qaar ee Galmudug waxay leeyihiin waxa ay u badan tahay in dhismaha maamulka Galmudug uu dhaco sanadka soo socda ee 2020 laakiin waxa xusid mudan in xilligaasi dalka oo dhan marxalad kala guur oo campaign doorasho u gali doono maadaama uu ku egyahay waqtiga madaxda dawladda federaaliga ah ee Soomaaliya Somaliland waxa ay sheegtay in ay ciqaab marsiinayso Cornel Caare taliyaha guud ee ciidamada militariga Somaliland General Nuux Ismaaciil Taani oo saxaafadda kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa hoosta ka xariiqay in haddii Somaliland uu gacanta u soo galo ay tallaabo sharciga waafaqsan marsiin doonaan Cornel Caare waa sarkaal militari oo ka tirsan ciidamada militariga Somaliland balse muddo sanado ka hor ayuu ka goostay Somaliland mar waxa uu soo goostay dhanka Puntland dhawaan waxa uu sheegay in Puntland dhankeedu uu ka baxay markii wada hadallo uu la galay madaxda Somaliland hase yeeshee iyadoo isku soo dhawaansho ay jirta ayaa haddana hadalkan cusub uu ka soo yeeray taliyaha militariga Somaliland General Nuux Ismaaciil Taani generalka guud ee taliyaha militariga Somaliland waxa uu hoosta ka xariiqay in uu galay sarkaalkaasi dambiyo oo dad shacab ah uu ku laayay gobolada Sool iyo Sanaag General Taani ayaa hoosta ka xariiqay in aysan jiri doonin wax cafis ah oo sarkaalka loo fidin doono ugu dambeynna waxa wali ka taagan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose qaska siyaasadeed ee maamulka Jubbaland hogaamiyaha maamulka Jubbaland ee aan la aqoonsaneen Axmed Madoobe ayaa waxa uu ergo u diray mid ka mid ah musharaxiinta ku sugan magaalada Kismaayo balse ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland musharaxa lagu magacaabo Cabdinaasir Seraar ayuu Axmed Madoobe waxa uu xil saaray tiro odayaal ah kuwaas oo uu fariin ugu dhiibay Seraarku fariinta loo dhiibay odayaasha ayaa ahayd in Cabdinaasir Seraar uu kala cadeeyo waxa ujeedkiisa uu yahay joojiyana arrimaha uu ka wada Kismaayo inkastoo wali jawaab aysan ku soo celinin odayaashaasi Madoobe haddana Cabdinaasir Seraar waa shakhsi meel adag kaasi waxa uu soo halgamay deegaanada Jubbaland gaar ahaan Kismaayo iyo goobo kale oo ka tirsan Jubbada Hoose sida Doobley oo uu ka qayb qaatay dib u xareynta magaalooyinkaasi Cabdinaasir Seraar waxa uu ka mid yahay musharaxiinta isbedel doonka ee Jubbaland
ugu yaraan 3 madaxweyne ayaa haatan ku wada sugan Kismaayo kuwaasi oo kala ah Cabdirashiid Xidig, Axmed Madoobe iyo Cabdinaasir Seraar, laakiin awoodda ugu weyn halkaasi waxaa ku leh Axmed Madoobe. warkii aad kala socoteen Danan TV xiliga kan waa naga inta daawadayaasha qiimaha inaga mudan mahadsanidin.